عليكم السلام ورحمة أبو وافي عنه نمبر كذا لباهية أو الدولة أي شيء مجا عادنا وحال وشيء عبد الله الراجع أو إن مقدشة إنه القلعة كفولي ربطان وعاد سخر حر ربطان أريما صاربنا إنا كاوريس إنه واحد كجيرة وارتني وإنا سواء الشام وأباهنا يواربي وان قرتي نيو حالي جور أذو لغسا عمله وهي كبلوضي إلا حالي إلا يساكي أنا نشغالان عيورته وهذا واحد جوجا 21 أكتوبر وحان عينك قوليها قولة رنجي هي مرسان عبد الله الراجع شيء ساهي ولا قولون اللي مرة تلفون كي نمبر كي مقع كقر هرمودة وسكرتا وحا صاحبه ربا فرضا هذي إسلام نمجرته بني آدم نمجرته نين مسكينة أو حماريان لا بقولي لما تنمبر أو أنا جي أفلق دينيس أو واقف قريرتا ورنيس قريرته حاجب مجلاي وحور كاجا أنا مري واقف قريرتا وحا مجال القوة دي جوجي اللي كلها سوت خلاك وعينه يصير بهدية مجرته ورحالة نوايا بسألت بالله أنت هنا اللمبر كان لمبر معروف وواي لمبر أشترك ما تلفون كان عندك صوت مقاطي وكل بيتنا هاي عليك اللمبر كاي حد عليك وركاي مأمنك كثير دانكوش هذا اللمبر كهرمود ورصة ما يعقوق ولا ويدي عبد الله جاد زاريه ونحن عارفين مدة ومية عليك مجرته magacaada Cabdullaahi Raage in Umar ayaa lagu soo qoray ee numberkan hadii magacaasi aanan lagu dhihin magacaada muxuu yahay aniga Cabdirashiid Aadan Nuur la dhaawalaw 21 October ayaad joogtaa warkaan markuu soo baxay kadib wax walwal ah oo dhanka saameynta amniga ma dareentay aniga amniga hadda markii aan oo xalay markii laba saac wixii ka dambeeyay ilaa ay hadda shaqooyina watay bareer hataa wixii u kala xalistaan la haye markii aniga nin shaqaale oo waa guriyaha rinjeeyaan ay ma garatay halka aad joogtid ma laga garanayaa meeshaan deganahay waa la iga garanaa macal gudoomiyaha degmada ay garanaayo macal aabkiisa ay garanaayo deegaanka meeshaas jooga macruufan ka wax xiriir ah dawladda ma la samaysay warkaan la baahiyay kadib aniga tab uma qabin idaacadda kama dhagaysan telefoon ay soo galay idaacadda in xal laga day saakaan maqlay lambarada fuluula u qalaay warkay waa sax wax beer ma rabo ma ku fakartay waliga inaad isqarxisid ilaahay ma kaso ina lillahi wa inna ilayhi raaji'un war qaraxa sheegaysa aniga ilaahay inta wili nafteeda ka keeno war aniga qarax niyo waa ilaa in la su'aal xataa shabaab abadkeena ma naqal farac ayna malihin sijino malihiniyo waan gartay gudoomiyaha degmada aad ii sheegtay inaad garanaysid ma u tagtay gudoomiyaha hadda laki ila joogo waxaan u sheegay inaan u tago gudoomiyaha aniga wiil yaro ma dhow yimid waaye aabiisa maxamed cumar la yiraahdaa aabiisa isku fiicanahay oo gurigiisa ataan sameeyay magaci hadda waxaan rabay inaan iraahdo maxamed cumar u tago aan iraahdo niyo arintaas oo laygu burbixiyay oo idaacadda laga sii daayay in ay been tahay lambarkaygaas laga dhigay inaan iraahdo gudoomiyaha u tagaa rabaa warkaan laakiin dawladdu inay baahiso maxaad ku macnay kartaa maxaa danta laga leeyahay muxuu yahay aniga hadda markay idaacadda i warsatay inay warka dhab yahay waa dareemaa laakiin markii hore waxaan moodaayay dad aniga meesha iga dhaxi rabo oo aniga fadwiinaayo aan u haystaan ilaa imise qofood ayaa ku soo wacday wallaahi lama soo koobi karo 1 milyan dad xataa naag waxay soo aanayaan xalmoodina ku aniga ma warka aniga waxaan والله هذا خل خليه وسواسي ويجلين imise sana ayaa jirtaa 48 sano caruur iyo qoysna waad leedahay saddex xaas baan leeyahay caruur aan leeyahay alxamdulillah waan dhaqanahay iyaga ayaadna u xamaalataa hayaga waxa maasha waa allahay allah walaxan weligay galayna maaha meelay ka dhacaan ma jecli dhicitaankooda waa ka naxaa ma garatay waan gartay aniga ayaa la waswaasan qof bila aadam oo naftiisa jecel qaabka oo isku qariya waaga aniga soo xasili waayay waxay kalifaayeen maxaa kugu yaab hadda ayayga dhulka ma taagnaa ku yidhi ilaa hadda muujada warsaaka aniga ala kamin guriga ka sameeyay meesha la yiraahdo nasr tuu guriga ka sameeyay guriga dheer hadda oo vitul iskoolka October ka soo jeedo todobada biyana oo geedaha ku xiran yihiin jahalad nin furan ay oo xadaas ku wada ma garat warniyo wala aniga ii qalmin aan qaada karin oo dhagtayda u roonayn qalbigayga u roonayn yaa la weydiinaya numberkan hormuud muddana waad wadatay muddana wada hormuud dadka kala saakay hormuudku weyna tagay saakay maxay ku dhaheen waxaan idin lambarana ay haysta waana ka shaqeysanahay EVC waa tulala shaqooyin waa ka amri lahaa waa lagu dhagan yahay numberkan wuxuu dad ku yaqaano oo meelaha horta suuq bacaad waxa taqaan ma jiro haye suuq bacaad aniga waxaan iri dadkan Soomaali ay shaqaalaha inay bari ku yimaadaan koonfur ku yimaadaan mogtaadi waan gartay
waxaan ila dadka meesha kala degan oo kama aqaan lambarka waxaan dadka iskama warqabay hal milyan qof oo isoo waxay hal meel u fadhiyo moogtahay marka hal kale ma haydina idinka waxay ilaa anaga lambarkayga horta wax ku xiran ma jiraan lambarka xataa ma waxay ilaa lambarka bedel iyaga ayaa ku yiri lambarka iska bedel maxay tahay lambarka lagu yaqiino uu soo baxay oo aan wato waaye iska bedel maxay noqonaysaa iska bedel maxaa lambarka wax kala lagu sameeyay wax kala lagu qoray ila hadda laga sheegay aniga ilaa hadda adiga ay hadlayso ka hor runba aniga uma haysan wax run ma haysan laakiin hadda waa qanacsanahay maadaama ay idaacadii soo wacday wax aan shaqo ku leeyahay ma ahan ma garatay waan gartay waxaad ka hubsan kartaa lambarka hadda adiga soo wacday oo ah 5 intaasi kadib sidoo kale waxaynu la xiriirnay magaciisa lagu sheegay Xasan Cali Liibaan oo dawladdu ay sheegtay in uu isqarxin rabo shawl mujaahidiinna uu ka tirsan yahay isaguna waraysi ayaan ka qaadnay waxaana uu waraysigu dhacay walaalo waxaan kaga jawaabayaa anigu nin muslimaanahay qarxis diyaar uma yihi lambarkaana anaa iskale nin shacab oo iska xamaasanahay lambarkayga dawladda ka baa sheegtay ma garad marka ilaa xalay ilaa saaka ilaa 500 oo qof baa soo wacday waana la yaabanaa dadkaan ujeedada ay leeyihiin marka dawladda lambar qalad ay iga gudbisay lambarkayga baa qalad loo qoray marka anigu qolada isqarxiska ma yihi ma garad dadka ku soo wacaya maxay ku leeyihiin wallahi markii dadka soo wacaya waxay leeyihiin iyo gaari noocaad wadataa waa isqarxinaysaa baa la yiri iyo isku qarxin meeshii dawladdu joogto adigu magaalada Muqdisho in maxaad ka qabataa Muqdisho ma jooga saaxib halkee joogtaa xuduudan bitagana waa ku shaqeynayaa dhankee weey xuduudan dhankee ka joogtaa dhanka waxaan ka joogaa qoray xageeda qoray ma taqaana area luq ma taqaana waan gartay halkaasaan deganoo niyo aribaan baraacdaaba yaa baadiga soo haray madaxda dawladda ma la xiriirtay hadaad wax ka garanaysid warigayba ma maqal adigoo kale way adigu keeta wariyo weey وحاجات وريه كتا إذاعة الفرقان اللي يراهدو الفرقان ها ولا لو غير الله كسيو لمبر كان قرد بالو تبيي أنوغنا واحد شيء شغل كماله إن إسلام وحين تسرع عضو إسك علشان هاي إلا ساكا إذا عضو در لمبر كان تطم بيسوه ذواحي إلا العودي بالله استموغي حال كلبه واللي قواه محا هدا كو قرشيسا والله وقت كي ما دافيا لكن واحد يقول شيء مسيران magaalada Muqdisho inaad joogtid ayaa la sheegay oo waliba aad isqarxin rabtid adiguna waxa leedahay Muqdisho ma joogi wallahi billah Muqdisho ma joogi hadii ilaahay ma adii ugu dambeyntii hadda maxaad u sheegaysaa dawladda Muqdisho fadhida ma naga dhaxeeyo iyada ayaa warkan ka qortay aniga iyo ayada waa wada hadlaynaa ninkii reportkaas gudbiyay baan yaan haystaa saaka